ku soo dhawaada erayo qiimo badan oo dhiirigelin iyo xikmadaba isugu jira. Iimaanku wuxuu tagsiyaa murugada iyo dhibta, waana ilqabowsiga muwaxidiinta kuwa Alle keli yeelay. Wixii tagay way tageen, ha ka fikirin waxa tagay ee dhammaaday. Xuska Allah wuxuu xasiliyaa qalbiga, dembiyadana wuu tirtirayaa, Allana wuu kaaga raali noqonayaa, dhibta iyo murugadana wuu feedaa. Haddaad waabariisato, ha sugin galabaysi, ku kulmi hammigaaga hagaajinta maalintaada. Ka tag waxa mustaqbalka imaanaya ilaa uu ka yimaado, haddanaynin berri, maxaa yeelay haddaad maanta wanaajiso, berri ayadaa wanaagsanaanayso. Laazim socodka iyo jirdhiska, ka dheerow caajiska, ka tag firaaqada iyo shaqla'aanta. Ugu mahadnaq Rabbigaaga nicmada uu ku siiyey, ugu mahadnaq nicmada diinta, caqliga, caafimaadka, maqalka, aragga iyo risqiga. Miyaadan ogeyn inay dadka ka mid yihiin kuwo waayay caqliga ama caafimaadka ama maxbuus ah ama imtixaamaysan? La noolow Qur'aanka adigoo xifdinaya, aqrinaya, ku tadabburaya. Taasi waa dawo midda ugu weyn ee lagu ceyriyo murugada iyo dhibta. Rabbi tala saaro oo u dhiibo taladaada oo idil, ku raali ahow xukunkiisa, asaga magangal, ku tiirsanow, isaga ayaa ku kaafinaya. Cafi cidda ku dulmisay, xidhiidhi cidda ku jartay, sii cidda wax kuu diiday, u dulqaado cidda ku xumaysay, waxaad helaysaa farxad iyo amni. Ogow inuu culaysku ka danbeeyo fudeed, dhibtana ka danbeyso faraj. Xaaladda sidan ma sii ahaanayso, maalmuhu way wareeganayaan. Ku farax sida Alla kuu dooray, maxaa yeelay adiga ma ogid sida maslaxadda kugu jirtaa. Waxay noqon kartaa inay dhibta kaaga khayr badan tahay barwaaqada. Imtixaanka adduunyada wuxuu kuu dhaweynayaa Allah, wuxuu ku barayaa ducada, wuxuu kaa tagsiyaa kibirka iyo faanka. Ka dheerow malxumada, tuur ismaweysiiska, sidoo kale ka dheerow waxyaalaha xun iyo fikradaha jiran. Ogow in dhibtu kaligaa ahayn, cidna kama badbaadin murugada iyo dhibaatooyinka.